waa saaxiib soo dhawaada sawirkan iga dambe aad u jeedaan waa ninkii sida weyn loogu tuhunsanaa dilka iyo waliba afduubkii gabdhihii ama markaas labadii gabdhood iyo waliba hooyadood ee lagu dilay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. xogtan ayaa rabaa ee soo shacbixiso in halkan kugula wadaago hadii ay tahay markii ugu horeysay ee uu ku soo gaaro muuqaalka fadlan soo raac kana mid noqo saaxiibadeena maalinlaha wararkeena halkan ugu la socdo noo share garee meel dheer nal gaarsi mahsanida soo dhawaad. Hashim Ahmed ayaa lagu magacaabaa sida xogtu ay sheegayso ciidamada ee wadanka Kenya ayaana ku guuleystay isaga iyo waliba sidoo kale dad si weyn loo tuhunsanaa in ay ka geysteen dil arxan darro ah misna markaasi laba gabdhood iyo waliba hooyadood markaasi si arxan darro ah loogu dilay halkaasi meedadkoodana xaafada ka tirsan magaalada Nairobi ee wadanka Kenya laga helay iyadoona markaasi muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada Kenya si weyn ay ugu shaqeynayaan sidii gacan ku dhiglaha ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen taasi oo u muuqata waqtigan la joogay inay soo shacbixiso misna la helayo xogo kala duwan ee halkaasi ka soo baxay waxaana sidoo kale shalay la soo taagay maxkamadda iyadoona markaasi lagu eedeynayo in si weyn ay u tuhunsan yihiin ciidamada Kenya ninkan oo ah nin dhalinyaro ah sida sawirka aad ka arki kartaan oo hadda markaasi la sheegayo in uu kaalin weyn uu ka lahaa misna afduubka ugu weyn ee gabdhaha halkaasi lagu laayay qayb uu isagu ka ahaa taasi oo hadda soo shacbixiso magaalada Nairobi marka laga tago labadii gabdhood haddan waxa muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn iyana loo markaasi loo hadal hayay in gabar kale markaasi si arxan darro halkaasi baangad madaxa loogu jarjaray misna si xun loogu dhibaatay ee ka dhacday hablaha iyo waliba sidoo kale dadka dantiir ama tawartiir ayaana loogu baaqay in ay si weyn u taxdiraan magaalada Nairobi ee wadanka Kenya oo hadda u muuqato cabsi xoogan iyadoo ona markaasi la arkayo ama markaasi ay taagan tahay waqtiga la jooga cabsida ugu balaaran oo ah in markaasi afduub iyo waliba dilal noocyadooda kala duwan laga geysto wadanka Kenya gudihiisa iyadoo ona gibi ahaanba magaaladaasi inta badan ay ku xirin kaamirooyinka CCTV-da taasi oo markaasi inta badan shaqadeedu ahayd in markaasi la tixraaco mise si weyn dabagal loo geliyo cidda dhibka geysanayso cidda dadka dhacayso iyo waliba qofka dadka dilaayo in xogtiisa la helo laakiin ninkan markuu soo shacbaxay ayaana markaasi inta badan aad loo tuhmayay oo ahaa in uu markaasi afduubka ugu weyn ee gabdhahaasi isagu lahaa taasi oo hadda soo shacbixiso misna ay u muuqataba inuu isaga yahay qofkii ka dambeeyay dilkooda misna fududeeyayba ama u geeyay cadowga qayb weyn ka lahaa kala shaqeynteeda magaalada Nairobi ee wadanka Kenya saacadda ka dambaysa waqtiyadeeda sidii hore ma aha oo isbedel weyn ayaa ka jiro waqtigan la joogay waxa ay u muuqataa in ay tahay mid markaasi si weyn ee dadku ku nool ay cabsi ay markaasi ugu baqayaan waliba gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa hadda laga dareemayaa in ay si weyn markaasi ugu baqayaan iyadoo Kenyaanka iyo waliba sidoo kale aan dareemi karno duruufaha kala duwan halkaasi ka jira haddana caqabad weyn ay ku noqotay in markaasi dilal iyo waliba dhac bulshada Soomaaliyeed halkaasi ku dhaqan ay kala kulmayaan wadanka Nairobi ee markaasi wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi lamaha amniga ee wadanka Kenya ayaana sheegaya xogo kale oo dheeraad ah taasi oo haddan markaasi soo shaabaxday kadib marka ninkan si weyn loo tuhmay baaristiisun ay wali ay socoto waxa ay sidoo kale ay bidhaameen mise ay sheegeen in gebi ahaanba laga sal gaari doono la soo afmeeri doono kiiska gabdhahan iyo waliba sidoo kale dadka dhibaatada ay u geystay taasi oo hadda u muuqata in markaasi ay soo shaabixiso wixii warar kale ee ka soo kordha halkan ay kugula wadaagi doonaa saaxiibayaal bal idinku muuqaalka meel dheer nala gaarsi oo noo share garay